maalmo dhaweyto xisbiyada mucaaradka aad bay ugu qariiro waxa la maray dad tartamay wala xidhay mucaaradinta loo jeedaa xisbiga kulmiye wuxuu doonayay iska reebo dadka in tartamaya. madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay murashaxiin u tartamaya golayaasha deegaanka iyo wakiilada oo lagu soo eedeeyay in ay galeen dambi khiyaamo qarana. madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay munaasabada daafurka wadada Hargeysa bypass waxaanu sheegay in murashaxiintaasi galeen dambigaasi lagu soo eedeeyay dambigaasi isagoo oo iska fogeeyay eedeymaha u soo jeediyeen xisbiyada mucaaradka ee ay ku sheegeen in kaliya la bartilmaameedsanayo xisbiyada mucaaradka aad bay ugu qariiro waxa la maray dad tartamay wala xidhay mucaaradinta loo jeedaa xisbiga kulmiye wuxuu doonayay iska reebo dadka in tartamaya dadkii la xidhay saddexdii ugu horeeyay la xidhay kulmiye ahaayeen laba min xarig baa loo jaray sanada kuwa imika taagan mucaaradka maxaafiska wareey qofka waxa lagu soo eedeynaya criminal forgery sharcigu baa ka sheegay xafiis waraaqii si xaday jaamacada aan ahayn buu leeyahay kila qabto wala sibki kila helo la oran maayo hebel baxay muxuu hebel nabad galay hebel haduu nabad galay lama qabanin lama helin hadii la helo wala qabado. dhinaca kale madaxweynaha ayaa ku goodiyay qof kasta oo lagu helo khiyaamo qaran ama uu xiriir la yeeshay dawladda cadow ku ah Somaliland in sharciga lala tiigsanayo waqti kasta oo lagu helo dambigaasi. laakiin sharci jabay la dhaaf maayo mid waxa lagu eedeynaya inuu dalaal cadow ah Somaliland gacan leeyahay hadii la hubiyo maxkamadda degdeg loo geeyo waa dambi aan warkan hadii la waayo halkiis uu ka sii wadan loo diiday doorashadiisa laakiin waxa la hubinayaa shuruudihii doorashada saxbi hadii la maagay maxkamadda caday xaq buu leeyahay xisbiga mucaaradka qofkuba inuu sharciga isu taago oo wixii qalad ka doodo oo maxkamadda la soorto sharciyeena weyn aaminaa marka inta aynaan qayrin inta aynaan qas iyo ay xanaf abuurin wixii qaranka soo soo ay maskan maado taasaan ku dhaafay. ugu dambeyn Mudane Biixi ayaa ka hadlay dhibaatooyinka wadooyinka Somaliland waxaanu sheegay in loo baahan yahay in ganacsatadu qayb weyn ka qaataan dib u dhiskooda waxaanu si gaar ah u soo qaatay bridge-ka bartamaha magaalada Hargeysa qoladina farsamada ee wadadan qaabilsan koridorka oo dhan qalab badan oo arkay dad badan oo aqoon leh maanta uu jooga bridge-ka insan soo eegay dhibaato ma qaban laakiin ciidii wax qaaday bridge-ka soo baxay sibil hore waa dhowtaan ku xidhnay mid daw iska xajay mid daw kiina uu qaatay waxaad yeeshaa maanta taga oo adiga dadka badan kula jooga bridge-ka halkiisii iyo si aamin oo wayna u dhistaa oo niyo ka faa'iideysan teelkada yaarta kuwa kale hadii joogtaa shirkadahan wixii laga faa'iido ay dirsan wixii ay ka gelin karo waayo in arka roobka xoog bay keeneen cimiladu isbedelaysa kolba waxa lagu soo baxaya tabarteenu way yartay laakiin waxaan u qabaa maanta qoladina farsamada injineeradiina isku tagay wadada ee xageena ay ku wado halka dooxaha bishadiisa kuwa dhismaha u baahan iyo kuwa joogan inay dayactirtaan waanu iska bixinaa lacagta. Xamse Xayd wararka lanta afka Soomaaliga SCB TV Hargeysa.